السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال waxaan jecelahay qiso soo gaadhay in aan maanta idin la wadaago. qisada waxa soo tabiyay nin professor oo la yiraahdo الدكتور عبد الرزاق محمود الزهراني bare cilmiga bulshada ka dhiga jaamacadda Malik Imaamna. sheekhaasi waxa uu ku qoray qisadan journalka la yiraahdo Al Jazeera cadadkiisii 13708 oo ku taariikhaysnaa 25 bishii Rabiicu Thani 1431 hijriyada. walaalayaal dhacdadan waxay ka dhacday magaalada Amsterdam ee dalka Holland. waxa uu sheekhu leeyahay waxa jiray nin daaciya oo madax ka ahaa markas amba xarun islaamiya oo ku taala magaalada Amsterdam, imaamna ka ahaa masjidkeeda. ninkaasi waxa uu ahaa nin dadaal weyn ku bixiya sidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala sababtiisa ugu soo hanuunin lahaa dad badan oo marka diinta islaamka aan fahansanayn amba aan wali maqal dacwadii islaamka. maalin kasta waxa bixi jiray isaga iyo inan uu sheekhaasi dhalay oo da'diisa uu ku sheegay 12 sano in uu jiro. waxa ay qaybin jireen manshuur amba kitaab aad u yar oo cinwaan looga dhigay at-tariiqu ila al-janna, wadadii jannada loo marayay. kitaabkaasi waxa uu ka hadlayaa islaamka, waxa uu barayaa dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. waxa ay markaa wadooyinka ku siin jireen oo ku gudoonsiin jireen iyaga oo waji furnaan iyo farxad ku qaabilaya dadka ajaanibta ah ee gaalada ah ayay markaa siin jireen. maalmaha kamida ayaa sidii caadada u ahayd inankii waxa uu isu soo diyaariyay yaraa inuu aabihii u raaco sidii ay u qaybin lahaayeen kitaabkii ay maalin kastaba qaybin jireen. laakiin maalintaa jawigu aad buu u xumaa, roob baa da'ayay, waxaa jiray qabow aad u fara badan. aabihii ayuu inankii weydiiyay ku yiri miyaanad baxayn aabe, waqtigii waa la gaadhay? wuxuu ugu jawaabay aabihii maya, maanta jawiga ayaa aad u xun, roob baa da'aya, maanta waynu iska joogaynaa. laakiin inankii yaraa arrintaasi way u cuntami weyday. wuxuu yiri aabe, ka waran maanta qof badbaado u baahnaa oo naar aynu ka badbaadin lahayn haddii roobka aynu ka baaqanay oo aynu ku joognay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naar ku galiyo ka waran. wuxuu yiri aabe fasaxadaba aniga ayaa tagaya oo safarka galaya oo u babac dhigaya jawiga iyo qabowga faraha badan. aabihii markii uu in badan fikirayay oo uu in badan ka fiirsaday waxa uu go'aansaday inankii inuu fasaxo. wuu fasaxay. inankii ayaa markaa waxa uu sii qaatay marihii qabowga loogu talagalay, dalaayadii uu markaa roobka isaga celinayay iyo agabkii kale ee uu u baahnaa. wuxuu qaaday kitaabkii yaraa ee uu qaybin jiray. waxa uu siiyay dad kutubtii uu qaybiyay oo uu kula kulmay wadooyinkii. xaafadaha qaar buu ku garaacay. markii dambe ayuu inankii wuxuu yiri waxaan garaacay gurigii in badan markaan garaacaya la iga furi waayay. waan yaabay waxa igu celinaya gurigan. garaacidii baan sii waday. markasta oo aan isiraahdo ka tag guriga oo ka bax, arrintaas way cuntami weydaa. markii aan in badan ku celcelinayay ayaa waxa iga furtay qof dumara oo waayeela oo guriga gudihiisa ku jirtay. dabadeedna waxa aan ku yiri Ilaahay wuu ku jecel yahay, Ilaahayna wuu isoo ka diray si noloshaadu ay isu bedesho oo khayr iyo wanaag aad u heshid. waxaan ku sidaa kitaabkan ku baraya Ilaahay. qoftii dumar ahayd kitaabkii bay ka gudoontay inankiina sidii buu ku soo noqday. sheekhi wuxuu yiri wiigii ku xigay maalintii Jimcaha ayaa markii khudbadii iyo muxaadaradii aanu jeedinaynay ay dhamaatay, waxaa dadkii jamaahiirta ahaa dhageysanayay darsiga ka dhex istaagtay qof dumar oo waayeela. waxay tiri waxa aan halkan u imi jimcihii hore maan ahayn muslim, kumana fikirin in aan muslim noqdo. laakiin maanta halkan waxaan idinku imi Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa wuxuu ii soo diray malag yaro ee aad u wanaagsan oo iga badbaadiyay. waxay tiri maalinta xaaladaydu aad bay u xumayd. bil ka hor waxaa geeriyooday ninkaygii oo in badan oo nolosha aan ku tiirsanaa.
cid kale oo aan nolosha ku tiirsado amba nolosha wax igala qabatana maan haysan arrintaas iyo dhibaatadaasi markay ila kulantay waxaan go'aansaday in aan nolosha isdhaafiyo xarig ayaan ku soo xidhay xagga sare ee guriga kursina waan dhigtay si aan isu dilo laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala inankaasu ii soo diray albaabkii baa la garaacay waan sugay si qofkaasi intuu tegayo laakiin wuu tegi waaye dabadeedna naftayda ayaa waxay igu tidhi yara sug oo intaad degtid horta bal qofkaas soo eeg kadibna markaa ku soo noqo halkaaganoo nafta iska jar inankii markii aan albaabkii ka furay waxaan arkay ilmaha yar ee farxadda iyo wanaagga wejigiisa ka muuqda iyo qosolka uu samaynayo aad wax la yaabaysay uu yahay dabadeedna waxa aan go'aansaday fariinta uu siiyay iyo ereyga uu yiri ilaahay wuu ku jecel yahay in aan markaa niyadaydi ay saameyn ku samaysay kitaabka uu sidana aan akhriyo arintii baan akhriyay maanta alxamdulillah waaniga waxaan ku qalcay islaam inaan noqdo kuna soo islaamay sheekhi ayaa markaa minbarkii intuu ka soo degay inankiisiyo safka hore fadhiya mucaanaqo iyo markaa inuu laabta galiye sameeyay kuna dul ooyay oo yiri aabo maanta aad baan kuugu faanayaa maanta waan ku faraxsanahay inaan aabaha ahay ilaahay subxaanahu wa tacaala sababtaada iyo adkaysigaagii iyo dadaalkaagii wuxuu ku soo badbaadiyey qofka dumara oo waayeelka ah oo naar geedi u sii ahayd walaalayaal miyaanay qisadaasi ina dareensiinayn gaabiska aynu kaga jirno dacwada diin faafinta in badan oo gaala ah amba lunsan oo aaggeena lagu arkayo haddii aynu farin yar gaadhsiino haddii aynu islaamka wanaagiisa u tilmaano haddii aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu naxariisto u tilmaano dambi dhaaf u sameeyo u tilmaano dadkaasi walaalayaal waxa laga yaabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sababteena in uu ku soo badbaadiyo xasuusta xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam la in yahdi allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri الnicam cali bni abi aalib ayuu nabigu ku lahaa ilaahay inuu qof qura kugu soo hanuuniyo oo sababtaada uu qofkaasi ku soo hanuuno waxay kaaga wanaagsan tahay geela cascas iyo markaa wixii dadku ay ku faanaan walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala dacwadiisa aynu juhdi gelino dadaal aynu gelino ilaahay subxaanahu wa tacaala haynoo adeegsado in aynu noqono dad khayrka iyo wanaagga faafiya wa salli allahuma wa sallama calaa sayidina muxammadin wa calaa aalihi wa saxbihi